halkan waa isbitaalka magaalada Qardho waxa goordhow la keenay meydka Allah u naxariistay Aways Cali Nuur oo ku jira da'da 35 sano jirka ah. Aways ayaa la sheegay inay dishay haweenay u dhaxday taas oo lagu sababeeyay dilkiisa masir soo kala dhaxgalay isaga iyo xaaskiisa. Aways ayaa waxa uu ifka kaga tagay 4 caruur ah. laamaha ammaanka oo la hadlay TV-ga Universal ayaa waxay sheegeen sida ay wax u dhaceen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil aalamiin. Halka waa xafiiska saldhigga booliska degmada Qardho. Maanta saaka 3 saac 4 saac ay bar waxa ku geeriyooday magaalada marxuum la oran jiray Aways Cabdi Nuur oo ku baxay xaaska gacantiisa gabar la oran jiray Farxiyo Ismaaciil Maxamed oo hadda ku jira gacanta ciidanka booliska. Waxay ahayd xaaskiisii waxay shilkaas ka dhacay xaafadda Kambo. ciidamadu way ka howlgaleen, ciidanka booliska oo hogaaminaya taliyaha saldhigga waa ka howlgaleen. howlgal bacdigiis gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiiglihii wax badan baa dadka shacabka ay saxaafaduna soo weydiinayeen. haddana waxay ku jirtaa gacanta booliska gabadhii gacan ku dhiiglaha ahayd. waxay ahaayeen family isqaba gabadhaas xaaska 4 caruur ay u lahayd. isku dhac bacdigeed ba arintaasi dhacday. toore bay ku dhufatay ninkaas saas ku dhintay dhagaxu saaran yahay insha Allah ina xabaalaha rajeerina. halka waxa uga tacsiyeeraya awalan eheladii iyo qaraabadii oo ka geeriyooday Aways waxa la samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo caruurta iyo familkan Ilaahay samir ka siiyo. dadka shacabka oo reer Karkaar oo Qardhood oo gacanta ka geystay qabashada gacan ku dhiiglahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida wada jirka oo ay nagala shaqeeyeen qabashadii gacan ku dhiiglaha gabadha gacan ku dhiiglaha oo runtii gacan balaaran naga siiyay qabashadeedii oo muddo kooban ciidamadu ku soo qabteen. marka insha Allah waxaan rajaynayaa haddii Allah iyadana inaan sharciga marsiirayno marxuumka meydkan insha Allah inaan xawaalo shacabkana waxa uu sheegayaa markasta oo wax dhacaan sida ay nogala shaqeeyaan gacan siinta booliska ay gacanta siirayaan waxa rajaynayaa insha Allah inay gacan siiyaan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Farax Maxamed Khaliif Farax Yemani, Universal TV, magaalada Qardho.